عليه هاي مدن الرئيس الوزاري كل هدادن عدالة الردي قبل الله كان على إمام القبل هذا هذا المسيني وهذا المدول بواحد خبتك خبسني كراسة على هيستا وكوكو خلد يسكسيدا سمعة هذا وحد ما يسا عيبت هذا ولا جاي وحد ما يسا ضل كان مستقبل بعد كرتا إن هذا مدح كان نقطات رتا إن هذا بري كمان الحد يدور شكاش نترتا ده تكون السيد كوي قام ويا سيد عدو يسوت قارما ما أنت سمعة هذا يكون لمني كرسي نينكي لها يغيركي لها يضدكي لها عايز بحيان او شرعيه او صبحي او عن عيدو كادبا قيلين إنا تكون دكتو وسمعة درو شرف درينا كوتا ظلمي بينا كوتا ظلمي قاس اسكايلالي دورشدنا اسكد الدجي قال يا اسلام بواحد كاد كاريسا مركا دورشدا اسكد الدجي او عاد قبطه او دورشدا ما يسترتو او ادون نظيف عن هلكا استاغتو مركاسا ولاغاغي شرفت هذا اللي اوغانتونا لكن سيدا ما انت عاد كسحت هوش او كوفر قبل ان هلكا اي استاغتو كراسان اوغahay oo Jubaland iyo ka soo baxay Puntland in ka soo baxayna aad tiraahdo waa cadaalad waxa la yiri nin baa la yiraahdeen lugaal baa durdur weydo dacmaal looga arooray dad baa u qaadanaya ma jirteen iyo ogaadeen baa cadaalad sameeyay iyo habar gidir sheekhalina cadaalad daray kursigeedu ku soo dooratay dad ma u qaadanaya mudan ra'iisul wasaare ilaahay ha ku xafido wiilkaygii baa tahay xumaan kuma quuro alla igu og inaana mid xumaan ku quurin laakiin waxa aad wadaa waxa waliba aad u sii xun inuu gaar ahaan u beegsado Fahad Yaasin waa kala talinaya aniga ra'iisul wasaaraha abtigiisa ah Fahadna adeerkiisa u kala eexan maayo inaan mid walba gartiisa siiyaan jecla mid walbana inuu wanaag iyo sharaf iyo ciise ku dhaqmo ayaan jecla waxa la mudan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wali inta aan joogay ma arag ra'iisul wasaare ka gudoomaya safiir waraaqii aqoonsiga ra'iisul wasaare area ya safiirna waligay ma arag laakiin madaxweynuhu safiirka waa ka gudoomaa waraaqaha waa ogolaada waana area bismillaahir rahmaanir rahiim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اولا الهي با مهد اسكله الهي بان مهد علينا مد الصومالية ميلي جوجتبا waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh bisha ramadaan barakadeeda ilaahay abaarta iyo cudurka iyo colaadaba haynaga faydo intaas waa ducadii markaan wariyo su'aashaada u soo noqdo waan arkay labada warqadood ee xalay ka soo kala baxay labadii xafiis dalka ugu sareeyay ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed halkaas waxa iiga soo baxday dhibaatada dalkeena taala inayna wax sahlan ahayn labadii nin ee dalka ugu sareeyay meesha ay kala marayaan baa ii muuqatay waxaan arkaa gobonnimadeennii iyo dawladnimadeennii iyo mustaqbalkii Soomaaliya inuu xeel ku dhacay koob iyo 90kii meeshii ahayd inuu ku dhacay waa dhaweyd waxaan lahayn iftiin baa idin soo baxay iftiin baanu hiranaynay dawladnimo muuqanaysay abaabul dawladeed iyo heekal dawladeed baa muuqanayay waxaan aragtaa wixii 5 sano iyo intii ka horeysay la soo dhoobdhoobayay maanta inay dhulka ku dhaceen baad arkaysaa waayo mar haddii labadii xafiis dalka ugu sareeyay ay halka marayaan waa dhibaato dalka iyo dadka u soo hooyatay ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naga samata bixiyo ilaahay oo adiga dartaa baan u soomanay naga samata bixi waxa soo haray waraaqaha waxa weeye dalku madaxweyne iyo ra'iisul wasaare u leeyahay madaxweynahana awoodda iskale ina saweyno wuxuu yiri garto aabba male oo adeer male oo walaal male oo seedi male oo sokeeyo male garto allay leedahay buu yiri ina saweyno labada waraaqood oo ay soo kala saareen waxalaada dhexdooda taagan bay horta ku tusaysaa waana dhibaatada dalka haysata waxaan oo dhanna waxaan kaga gudbi lahayn doorashadu haday dhamaan lahayd waa laga gudbi lahayd waxaas oo dhan waxa keenaya doorashada jiidmaysa ee maalin walba lagu sii fakanayso waxa weeye marka labada waraaqood ay soo kala saareen ee dalku madaxweynaha awoodda iskale dastuurka sida naloogu sheegay awoodda dalka madaxweynaha u sareeya wali inta aan joogay
ma arag ra'iisul wasaare ka guddoomaya safiir waraaqihii aqoonsiga ra'iisul wasaare eryaya safiirna weligay ma arag laakiin madaxweynuhu safiirka waa ka guddoomaa waraaqaha waa oggolaadaa waana eriyaa ma fahamtay marka arrintan waxaad ila moodaa inuu ku khaldan yahay ra'iisul wasaaruhu sababtoo ah inuu wasaaraddii arrimaha dibadda kala tashado oo wasiirka u yeero dabadeedna ay madaxweynaha u gudbiyaan madaxweynuhuna oggolaado sidaa lagaga saara ayay ahaan lahayd quruxsanaan lahayd laakiin hadda waxaad moodaa ceebteenna inay bannaanka wadataan kulligeed boqolka safiir ee jooga xalane oo safiir walba dawladdiisa u joogo yaan kulligeen isku dacweynaynaa siyaasi kasta mucaarad ha ahaada muxaafad ha ahaadee kuwaasun baynu isku dacweynayna maxaa norway iyo farasiil bandela iyo maraykan iyo ingiriis qabiilada soomaalida kala baray reer hebel weeye kaasaa la leeyahy midkaas saasuu u jeedaa waa reer hebel baa la leeyahy waxaasoo dhanna innagaa isugu wacan soomaalinimo waa dhimatay islaamnimo waa dhimatay bini'aadnimo way naga dhimatay waxaan maraynaa heer aynu akhasul akhs adduunkao dhan inaga yaqyaqsadaynu marayno markaannu islaamnimadeennii iyo kitaabkeennii qur-aanka iyo diinteennii iyo wanaaggii ilaahay ina siiyey iyo sunnihii nebiga ku dhaqmi weynay oo aan gaalo ka dhigannay weli inaan saas nagu dhacaysana anu waan garanay nin kastoo caqlinana waa garanaya gaalaynu ka weli dhigan labadan waraaqado marka adeer yaan waxba hadalka lagu celcelin haddii ra'iisul wasaaruhuna mid erida soo saaray madaxweynuhuna mid joogisa soo saaray xaqiiqada madaxweynaha tiisa unbay tegaysaa waxaa ila habboon marka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa soomantihi waad salaad baad tukataan islaamnimaad sheeganaysaa inta mid islaama mid kaleeta uu cuqdad caloosha ugu hayana camalkiisa ilaahay ma racfinayo malaa'igtu ma racfinayso dantiinna u tura naftiinna u tura soomaaliha u turina mid walba 2 mitir oo madow oo qabriyaha sugaya iscafiya bil rabadlaan baad joogtaan si soonkiinna ilaahay u kor yeelo salaadiinnana ilaahay u kor yeelo ilaahay idinka aqbalo inta isu tagtaan isa saamaxa waa bil rabadlaani ummaddan mas-uulka aad ka tihiinna niyadda ha naga dilina maalin walba warqad niyadda naga dishaad soo saartaane niyadda ha naga diline ummaddana si cadaalad oo soomaalinimo oo walaalnimo ugu shaqeeya haddaynaan yeelin oo aad leedihiin midba midka kaleeto iska ilaali iyo midba midka kaleeto yuu ku legdin iyo midba midka kaleeto yuu kaa garhelin oo aad gaalo un isku wada dacweynaysaan ilaahay inta ka yaabtaan ilaahay baanu idinku dhaarinay labadiinuba iscasiloo xilka noo dhiga annagaa dad dooranayna dalka noo ilaaliya haddaan doonno al-shabaab baan u dhiibanaynaa iscasila naga taga waxaana wax loo adkaysan karo iyo wax la maqli karo iyo wax la ogaan karo midna maaha marka adeer horay baa waxaan u idhi xajadan albaabadii laga xidhay iridna loo diiday xajadan ibihii laga jaray iyo 4 dhiiqaysay xajadan aabbaheed la dilay lagana agoonteeyey xajadan ehelkii isku dirtee kala irdhaysiisay xajadan indheer garad la naciya oday talinaya xajadan in badan gaalada ku ag wareegaysa indhaheedaan arkaayo rag bay ceersan doontaaye inkastoon adduunyadu lahayn aaya lagu faano soomaalidu meesha u socotaa wayla ama kaag marka soomaali ceelkii ay ku socotay way ku dhacday rag baana ku riday ayagaana mas-uuliyaddooda yar nin kastana wuxuu qabtay wanaag iyo xumaan taariikhda qori doonta saasaan leeyahay adeer in gaaladu ay arrimaheenna hoose ka hadasho innagaa isugu sababa innagaa u sheegayna waxa ninkani ogaanaya annagaa u sheegayna xalana intuu ka soo baxo dadka ma dhex maro shacabka ma warsado barta uu joogaa loogu geynaya wax kastoo dhacaya marka maxaa diidaya wixii aad u geysay oo anigu u geeyey oo ka kale u geeyey inuu sheego maxaa diidaya ma faad ta kale wuxuu sheegay in qaraxyadii la siyaasadaynayo dembi ninkii lahaa sheeganayo oo leeyahay anigaa dhibay anigaa galay oo uu ku faanayo in la yidhaahdo ma gelina mid kalaa galay waa cadaalad darradana haysatay ka mid ma faad taas unbuuna sheegay marka waxaa weeye wax aan inagu u geyno unbay gaaladu inagu sheegaysaa
arrintaas adeer doorashada waxay ila muuqataa haddaad i su-aashay doorashadu markii hore horta doorasho dadban bay ahayd mar labaad oo guddiga wadatashiga qaranku uu tashaday maamul goboleedadaa sii dadbaday mar saddexaad hadda ra'iisul wasaaraha dadbaday hadda waxay u taagan tahay dadabkii ra'iisul wasaaraha yay u taagan tahay marka ra'iisul wasaaraha waxaan qumanay inuunan maamul goboleedada qaar beegsanin inuu shanta maamul goboleedba beegsado oo u dhigto isbaarada oo mid walba shan ka qabsado saasaa wax maaragtay markaa ugu yar habboonaan lahayd laakiin inuu afar nin oo midna meel ka soo baxay labana saddexna meel ka soo baxday keliya uu doorashadii kaga dhigo annagoo uu og yahay uu arkayey boosaaso 3 saac gudahood 16 kursi oo lagu doortay waa 3 saac 6 saacadood yahay 6 saacadood gudahood 16 kursi lagu doortay oo hal erga dooratay oo wixii qaylo ka baxayay odayaashii dhaqanka iyo musharaxiintii uu arkayay asaga uu arkayay Jubbaland wixii ka dhacay annagoo og inay doorashadu wada ahayd akhsul khaas kulligeed ya inuu haddana qaar gaara beegsado waa cadaalad darro mabaad waxaa weliba aad u sii xun inuu gaar ahaan u beegsado Fahad Yaasiin waa kala talinaya aniga ra'iisul wasaaraha artigiisaana Fahadna adeerkiisaana u kala eexan maayo inaan mid walba gartiisa siiyaan jecla mid walbana inuu wanaag iyo sharaf iyo ciise ku dhaqmo ayaa jecla waxaan leeyahay mudane ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble abtigaabana way taqaanaa ehel baan ku ah ducadii iyo tuftii iyo walaalnimadii iyo ehelnimadii aan kugu wadnay iyo ilaahu wax nooga dhig inaad maanta Fahad Yaasiin xabadda kula beegsato oo abtigaaya waa ku dadnimo xuno waxaan arkayay wasiirka la baxay wasiirka warfaafinta wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo al-cadaalad dadku u yaqaaneen anigu saan u bixiya al-qabyaalo waxa uu ku hadlayay waa arkay waxa ra'iisul wasaaraha jarka ka tuuray mar walba lugaha dhiiqa u gelinaya waa asaga iyo wax la mid waxaan leeyahay madaxda ra'iisul wasaare kol hadaadan cadaalad darradii gobolada ka dhacday maamul goboleedada aadan misaynin oo aadan mid walba waxaad qabta ka qabsanay kuraasan aad haysataa waa kugu qalad iska sidaa sumcadaaday wax u dhimaysaa ceebtaaday walaagaaga wax u dhimaysaa dalkana mustaqbal baad ka rabtaa inaad madax ka noqotaad rabtaa inaad berri ka maalin cod iyo doorasho ka heshaad rabtaa dadkuna siduu ku yaqaan weeye sida adigu isu taqaan maaha maanta sumcadaadu yay ku dhimanin kursi ninkii lahaa iyo reerkii lahaa iyo dadkii lahaa ay isbixiyeen oo sharciya oo soo baxay oo aan cid ka daba qayliyin inaad ku dhigto waa sumcad darro sharaf darrayna ku tahay dulmi bayna kugu tahay dulmigaas iska ilaali doorashadana iska dedeji gaal iyo islaamba waxaad ka adkaanaysaa markaad doorashada iska dedejiso oo aad qabato oo doorashada dhammaystirto oo adoon nadiif aad halkaa istaagto markaasaa wanaagaaga iyo sharaftaada la ogaan doona laakiin sidan maanta aad ku socoto hawsh oo koonfur goboleedna halkaa ay istaagto kuraastaan ogahay oo Jubbaland iyo ka soo baxay Puntland ka soo baxayna aad tiraahdo waa cadaalad waxa la yiri nin baa la yiraahdaa nugaal baa durdur weydo dacmaa looga arooray dad ma u qaadanaya ma jirteen iyo ogaadeen baa cadaalad sameeyay iyo habar gidir sheekhalina cadaalad darray kursigeedu ku soo dooratay dad ma u qaadanaya mudane ra'iisul wasaare ilaahay ha ku xafido wiilkaygii baa tahay xumaan kuuma quuro alla igu og inaana mid xumaana ku quurin laakiin waxa aad wadaa ceeb bay ku soo jiidayaan faraha kala